الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta wasiirka isboortiga dhammaan mas'uuliyiinta nagala soo qayb galay munaasabadan dhammaantiin bahda meediyaha iyo amnigaba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib waxa aad iyo aad farxad noogu ah maantay inaan booqasho shaqo ku nimid Muqdisho Stadium ama Stadium Muqdisho oo runtii hawl aad iyo aad baaxad iyo qurux leh ay ka socoto burburkii dalka ku dhacay kadib runtii yiddiilo iyo farxad ayaan dareemaynaa in muddo anigu ma imaan halkan sababtoo ah burburkii dhacay iyo kala xirnaashihii wadooyinka kadib runtii shaqab qurux badan baaxad leh ayaa ka socota waxaana rajaynaynaa mar dhow inay soo gabagabowdo runtii Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir qayb weyn ayay ka qaadanaysaa garoonkan Muqdisho Stadium dhismihiisu maxaa yeelay wuxuu qayb ka yahay amnigii oo ah tan maanta dalkeen ugu baahida badan yahay sidoo kale waxay qayb ka qaadanaysaa isdhexgalka bulshada iyo horumarka dalku uu mutaqaana gaarayo waxaan rajaynayaa mar dhow oo aan fogeyn in kooxihii qaranka iyo kooxaha caalamiga ahba inay halkan tartan u iman doonaan innaga iyo yaani dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan fursad u helin inay garoonkan oo ciyaar ka socdaan ay ka soo qayb galaan oo ay daawadaan inaan wada daawan doono mar dhow ayaan rajaynaynaa taasoo la dareemi doono farxad in muddo ahba la tabayay oo dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii hore uga qayb gali jiray ciyaaraha garoonkan ay dib u xasuusan doonaan waayo ay farxad sida darteed waxaan leenahay hay'adaha sida gaarka uga shaqeynaya oo harkacaysa wasaaradda isboortiga dadaalkiina wada waana idinku habalyeynayna doorka iyo qaybta nooga aadanna si buuxda ayaan uga qaadan doonaa haddii aan nahay maamulka gobolka Banaadir. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.